بسم الله الرحمن الرحيم maanta way bishu tahay 28 bisha koowaad 2019 waxaan halku qabanaynaa shir jaraa'id aan doonayno inaan ka mahad celinno xafladii caleema saarka ee bishan 26keedii ka dhacday magaalada Garowe marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan halka uga mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha aqalka sare gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Soomaaliyeed golayaasha kala duwan ee dawladda federaalka madaxdii hore ee dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed sidoo kale madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah Jubbaland Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed sidoo kale waxaan rabaa halka inaan uga mahad celiyo gobornarka Gaarisa iyo wafdiga xildhibaanada iyo senatarada ahaa ee la socday safiirada dawladaha aan saaxiib ka nahay marti sharafta kale ee dalka dibadda iyo gudahaba nooga timid sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddigii qabanqaabada ee muddadii hawshan socotay mas'uuliyadda weyn ee ballaaran hayay waxaan sidoo kale mahad gaar u celinayaa ciidamada qalabka sida oo suuro geliyay inay dhacdo xaflad ammaan ku dhacda ammaanna ku soo gabagabowday sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga mahad celiyo fanaaniinta gobolada Waaberi Puntland iyo fanaaniinta kale ee dalka dibadiisa nooga yimid saxaafadda oo door muhiim ah lahayd sidoo kale caleema saarka wuxuu abuuray fursad aad qaali u ah oo isugu yimaadeen madaxda Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen taasoo dadka reer Puntland sharaf iyo karaamo weyn u ahayd isla markaasna abuurtay fursad aad u weyn oo dadka Soomaaliyeed ay ku wada kulmaan waxa kulamadaas muddadii uu socday fursad la isugu helay in ay si gaar ah isku arkaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka gudoomiyaha aqalka sare gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka madaxdii hore ee madaxweynayaashii hore ee dawladda federaalka Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif sidoo kale madaxweynayaashii hore ee Puntland mudane Dr. Cabdiwali Cali Gaas iyo madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole madaxweyne ku-xigeenyaashii hore iyo gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Geedi intaas oo dhan runtii waxay muujisay shirkaas oo maalintii shalay qabsoomay waxa aad looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka looga wada shaqeeyo sidii dawladda Soomaaliyeed dib u dhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan shirkaas wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo iyadoo kulankii caleema saarka oo ay qayb ka ahaayeen isimada reer Puntland waxgarad abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada Soomaaliyeed ay aad u soo jeediyeen in dadka Soomaaliyeed iscafis guud uu halka ka dhaco maadaama fursad aad qaali u ahayd waxa dadkii oo dhan isla qaateen oo horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed in wixii dadka Soomaaliyeed ku kala dhex jiray xal dhalay laga noqdo hore loo socdo dalka iyo midnimadiisa laga shaqeeyo runtiina waxay ahayd kulankaas kulan taariikhi ah oo Garowe ka qabsoomay oo Ilaahay uu noo suuro geliyay kulamadaas guud ee madaxda maamulada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka isku arkeen wuxuu gogol haar u noqday in kulamadii u dhaxeyn jiray oo muddo hakad ku jiray kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo madaxweynuhu ay kulan maanta wada yeesheen kulankaasoo loogu gogol xaarayay in la isku cafiyo waxyaabaha khilaafka shakhsiga ah lagu saaro danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo howlaha iyo ajandayaasha dhabta u ah dawlad dhisidda si qoto dheer loo galo oo aad loo lafaguro si loo gaaro horumar shacabka Soomaaliyeed ay ku laanoonayaan runtii arintaas waxay horseeday in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad una ka codsaday dawladda
puntland in ay gogoshaas martigeliso anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka puntland waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada garoowe waxaana ku faraxsannahay inay puntland sidii horeba u ahayd inay ka shaqeyso midnimada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya in kaalintaas si firfircoon ay u qaadato waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dowladda puntland u furan tahay ka shaqaynayso midnimadooda iyo horumarkooda diyaar u tahay in wax kasta oo madmadooba oo soo kala dhexgala ay kaalin muhiima ka qaadato waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed inay wadajirka ilaaliso midnimada ka shaqayso dowladnimada ka shaqayso horey loo wada socdo wixii khilaafaad ee shakhsi ah ee u dhexeeya meesha laga saaro cid walbo ay tahay ummaddana ay ka wada shaqayso nabadgelyada meelna looga soo wada jeesto sidii cadowga ummadda soomaaliyeed ee nabaddiidka ana loo ciribtiri lahaa dowladnimada soomaaliyeedna sharciga iyo kala dambeynta loo ilaalin lahaa horumarka iyo sidii dadka loogu adeegi lahaa looga wada shaqeeyo waxaan ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed meel kasta ay wada joogto kulamadii halkaa ka soo baxay inay ahaayeen kulamo dhiiri gelinaya shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan shacabka reer puntlandna sharaf iyo karaamo u soo hoynaya tusinayana inay diyaar u yihiin inay walaalahooda soomaaliyeed ay la qaybsadaan wax walba maxaa yeelay inta meel ka mid ah soomaaliya ay dhibaato dareemayso dhibaatadaas waa dhibaato ummadda soomaaliyeed wada haysato waxaan rajaynaynaa beejkaas inuu beej cusub fur noqdo madaxda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in ay waxa dadweynuhu ka sugayaan sida ay tahay loo qaato waad salaamantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu